السلام عليكم كدواد أما كبدن 422 مليون oo qof ayaa lagu qiyaasaa caalamka inay la nool yihiin xanuunka macaanka ama sankarowga kaliya 2016 dadka u dhintay dunida cudurkani macaanka ayaa lagu sheegay inay gaarayeen 1.6 milyan oo qof cudurkan ayaa saameyn jiray bilaadanka qarniyo badan ilaa laga soo gaaray maanta oo ay saameyntiisu wali jirto mana jirto wax daawo ah oo cirib tirta jiradan oo la soo saaray waxaa jira dad badan oo qaba xanuunkan haddana u nool si caafimaad leh maadaama ay xadideen ama ay kontarooleen jiradani macaanka cudurkan ayaa ka mid ah cudurrada qofka la noolaada ama afka qalaad loo yaqaan chronic disease waxa uuna yimaadaa marka sokorta qofka ay kor u kacdo dhaaftana xadkii loogu talagalay jirkeennuna xadidi waayo yaraynteeda sonkorta uu jirkeennu isticmaalo ayaa loogu yeeraa afka qalaad glucose waana meesha ugu badan ee aan ka helno enerjiga uu jirkeennu ku shaqeeyo laakiin si loo isticmaalo sonkortaas jirkeenna ayaa u baahan inuu u oggolaado gelidda gudaha unugyadeenna taasna waxaa fududaynaya hormoon loo yaqaan insuliin kaas oo fariin u ah in unuggu ama seelka uu oggol yahay inay sonkori soo gasho si kooban cudurkani macaanka ayaa ah jiro timaada ka gadaal yaraanshaha ama la'aanta dhacaanka afka qalaad loo yaqaan insuliin dhanka kalena waa la dhihi karaa sonkorow haddii jirkeenna uu isticmaali waayo dhacaankaas hormoonkan insuliinta waxaa laga soo saaraa qaybo qaasa oo ka mida unugyada ganaca qofka ama bankariyas afka qalaad kuwaas oo loo yaqaan unugyada beeta ama beta cells mar kasta oo ay sare u kacdo xaddiga sonkorta ee jirkeenna unugyadan ayaa si degdeg ah ku sameeya kuna soo daaya dhacaanka insuliinta si loo ilaaliyo sokorta kiciddeeda markii habkaani ay carqaladi ku timaaddo ayuu yimaadaa cudurkani sonkorowga ama macaanka oo khatar iyo saamayn ba'anba u geysta qaybaha kala duwan ee jirkeenna uu ka samaysan yahay waxaa xumaanaya socodka dhiigga xididdadeenna ciladdaasi kadibna waxaa qofka ku imaan karaa indho la'aan kaadi badan wadna xanuun cudurrada neerfaha keliyaha oo dhinta aragga oo xumaada iyo u nuglaanshaha daran ee infekshanka ama dulinka dhibaatooyinkani ka yimaada cudurkan ayaa looga fogaadaa la tacaalidda iyo la socodka cudurka si wanaagsan oo taxaddar leh cudurkani macaanka ayaa u qaybsama 3 qaybood qaybta koowaad ayaana loo yaqaanaa type 1 diabetes tan ayaa ka timaada ka gadaal markii daafaca jirkeenna uu si qaldan ama been ah u fahmayn unugyada dhacaanka insuliinta ay yihiin kuwa bannaanka ka yimid oo uusan jirkeennu lahayn halkaasna lagu burburiyo kadibna jirkeennu uu awoodi waayo inuu soo saaro insuliin waana sababta keenta in qofka lagu duro mar kasta cirbadda insuliinta qaybtan koowaad ayaa ah qayb ku timaada si dhaxal ah waxaana la ogaadaa qofka inta uu yar yahay baaritaan ahaan wayna leedahay saamaynta ay leeyihiin noocyada kale ee sonkorowga qaybta labaad ayaa iyadana loo yaqaanaa type 2 diabetes qaybtan ayaa la soo saaraa insuliin balse jirka ayaan u isticmaalin sidii loo rabay waxaana loo sababeeyaa in uu jirka ka lumay dareenka
insuliinta lagu garan lahaa in loo baahan yahay. Goortii ay dhacdo in dhiigga ay ku badato sokorta, unugyada beeta loo yaqaan meesha waa ay ka baxaan. Dhammaan habkan aan soo sheegayna ee la xiriira sababta uu dareenkaas insuliinta u lumay ilaa ay hadda lama fahmin. Shayyaasha sida miisaanka oo kordha, cunto badan oo la cuno, jimicsi la'aanta iyo isku buuqa joogtada ah ayaa hoggaan u ah waxyaabaha loo aqoonsan yahay inay keenaan sokorta noocan ah. Nuuca saddexaad ee sonkorowga ayaa loo yaqaan gestational diabetes afka qalaad, waana nuuc yimaada goortii ay haweenaydu uur qaado. Qaadida noole kale oo bil'aadam ah ayay dhibaato kala kulantaa hooyada uurka leh. Nuuc ka mid a dhibaatooyinkaas ayaa waxa uu yahay kan ay yar tahay soo saaridda insuliinta hooyada iyo cunugga uurka ku jiraba. Sida caadiga ahna jidhku ma maamuli karo sonkortaas, waana sababta ay ku timaaddo in haweenaydu ay qaaddo cudurka macaanka ee xilliyoolaha ah. Cudurkan ayaa ay gabadhu ka roonaataa markii ay dhasho, mana ahan cudur haynaya nolosheeda inta ka dhiman, balse waxaa jiri kara dhibaatooyin caafimaad ee uu keeni karo gabadha inta ay uurka leedahay haddii aan si wanaagsan loo daaweyn oo lagala tacaalin. Sannadahani dambe nolosheenna ayaa waxaa sii xumeeyey habnololeedka dunida ka jira iyo cunnooyinka aan caafimaadka lahayn ee aan isticmaalno. Tanina waa sababaha ugu weyn ee dunida maanta ay u wajahayso inay ku sii kororto sokorta qaybta loo yaqaan afka qalaad type 2 dhalinyarada yaryar. Tan oo macquul ka dhigaysa in sokortu noqoto cudur dunida ku sii raaga. Cilmi baaris lagu sameeyey dadka cayilan ayaa sheegaysa in baruur oo fuusha ganaca iyo caloosha in ay keeni karto qofka inay ku dhacdo sokorta nuuca labaad. Inkastoo dadka sameeya miisaan dhimidda iyo qalliinka xayrta ay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad oo la xiriira inuusan sii hormarin cudurkooda macaanka, iyadoo aan weli la soo saarin daawo cirib tirta cudurkan ayaa rajo la qabaa. Waxaana jira hal rajo oo lagu qabo in la helo daawo cirib tirta sonkorowga, balse cilmi baarisi ku socoto. Waana samaynta unugyo beddela beta cells-ka ganaca ee shaqayn waayey, waxaana laga wadaa cilmi baaristan stem cell research. Unugyada asliga ah ama stem cell waa unugyo qaasa oo ay ku koraan unugyo kala duwan oo ay ku jiraan unugyada beta ee soo daaya insuliinta. Cilmi baarayaasha ayaa dhowr tijaabo oo aan weli lagu guulaysan ku sameeyey beta cells cusub, balse weli waxaa jira rajo laga qabo in unugyadaasi beta la helo ayadoo la isticmaalayo shaybaarka. Waxa ugu dambeeya ee aan leeyahay muuqaalkeenna maanta ayaa ah ku dadaal inaad hagaajiso noloshaada. Samee jimicsiga iyo waxyaabaha nolosha u wanaagsan sida isticmaalka cunno caafimaad qabta kuna wanaagsan caafimaad ahaan. Muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku ogyahay daawade. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar. Hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato. Commentiskana igu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. Fiidiyowga inoo xiga insha Allah.